sidee website-kan adoo ku jiro imtixaankii 2021 ee maadada Englishka aad ku qaadan kartaa iskuna tijaabin kartaa. website-kan markaad ku jirto all courses baa tegi, waxaa kuu soo bixi wixii koorso ku jira halkaas. koorsooyinkii hadda sida may noqonayaan waatana hadda English exam 2021 kii la galay bay ka dhigan tahay. marka koorsada markaad furato sawirkan waad ku dhufan kartaa, qoraalkana waa la raaci karaa, waa free. qofku hadduu u diiwaan gashan yahay waqti xaadirkan 14 arday baa yaa koorsadan u diiwaan gashan tahay. curriculum-keeda haddaad fiiriso sidan buu u ekaanayaa. uu inoo soo bixi curriculum-keeda. marka qaybta grammar-ka iyo qaybta comprehension waa sii furi karnaa. sectionadan hoosaadka ay sii yeelanaysaa. haddii aan koorsadan inaan qaadano rabno take this course waan leenahay. marka qofka username iyo password waa inuu leeyahay oo ku galayo. hadduusan lahayn ma access garayn kara koorsadaas. arday@gmail.com tusaale ahaan passwordkii website-kan baan muxuu ahaa ku geli, kadibna sign in gal baan leeyahay. sign in taan leeyahay waxuu geli khadkaaday ku xidhan tahay kolba meeshay wax ku marayaan. marka log in markuu sidan kugu galo start koorsada waad dhihi kartaa. marka start markaad dhahdo koorsadii inaad bilowdaba isu soo diyaarinaysaa. hadda wax yar baan sugaynaa, khadkeena ku xidhan tahay kolbo siduu inoogu soo dhigo. marka koorsooyinka hadda aan enroll garaynay tii aan hadda bilaabayno, marka bilow markaan dhahno koorsada waa imtixaankii 12aadka ee jaamacadaha lagu galay sanadkii 2022. marka qaybta koowaad ee grammar-ka oo ka kooban 38 su'aalood waan tijaabin karnaa haddaan yara dulmarayna si degdega. start quiz baan dhahaynaa. daqiiqadaha hadda waqti xaadirkan aan haysano 20 daqiiqo. marka aan bilowno su-aasha koowaad waa tana. haddii aan si rafa isaga kormaro sidan bay noqon. marka nasiibkayga waxaan fiirini 38 su'aalood wixii aan ka keeno. haddaan iska baqtiyaan nasiibiyaan oo akhrinayn. marka nidaamkan wuxuu ku fiican yahay markii aad saa u dhameyso su'aal kastoo saxday iyo tu kastoo ka khaldantay waa si sax u kuugu sheegaya. koorsooyinkan imtixaanadan in laga shaqeeyo waqti iyo cilmi baa ku baxay. dad aqoonteeda lana way ka soo shaqeeyeen. dhinaca gelinta sidaas oo kale dad khibrad u leh baa ka soo shaqeeyay. marka qofka ardayga ah sanadkan isku diyaarinaya imtixaan wuxuu u baahan yahay username uu ku isticmaalo website-kan si uu u access gareeyo imtixaanaadka iyo koorsooyinka kala duwan ee ku jiro. marka inahaas hadda su-aashii 27aad baan maraynaa. 38 su'aaloodna weeye. si degdeg aan ku dul maraynaa. 20 daqiiqaan haysanay, hadda waqti xaadirkan 18 daqiiqo waa inoo dhiman. tii 33aad kolba optionada waan yara kala bedbedelaya bal dadkeena ardaydeena si u galaan iyo natiijada si ugu soo baxdaan yara fiirineen. su-aasha u dambeysay 38 markay kuu marayso summit quiz baa kuu soo bixi. marka inta su'aaleen saxnay hadda waxaa weeye question 1 way noo saxantay, 2 way saxantay, 3 way saxantay, 4 way saxantay. kuwan kale bayna saxmin, kuwa kale iyagana dhaxda inoo saxmay baa jirto. marka haddii aan 76% meeshii aan rabnay inaan keeno 18 baan ka keenay. marka waa less than 50% bay ka dhigan tahay. marka su'aal kasto waan hubin karnaa. hadda 37aad jawaabta saxda weer bay ahayd laakiin am baan ka dhignay oo optionka labaad. tan iyadana jawaabta saxda ee bay ahayd laakiin c baan ka dhignay. marka saasaad u arkaysaa. marka waqtigaan siibina waxba lagu helin waan arki karnaa. ardaydeena way practice garayn karaan su'aalaha ka khaldamay hadday rabaan keligood inay gooni u soo saaraan sidan bay u arkayaan.
su'aal walbo next way dhihi karaan, way review karayn karaan. Marka mar labaad markay qaadanayaanna si ka dhibca sareysa sida hadda ay keeneen way keeni karaan. Marka mar labaad marka la qaadanayo retake quiz ma la dhihi, si cusub su'aalihi haddana ay isu soo diyaarinayaan. laakiin su'aashii u horeysay waxaa suurtagal ah inay dhexda iska tagto oo su'aalaha sida isu yara daamaraya. Start marka hadda dhahno su'aashii marka hore ay ku bilaabatay ma su'aal kale inay ku bilaabataa suurtagal ah, maadaama nidaamka lagu diyaarinayay uu ahaa nidaam dynamic ah. waad save garaysan kartaa si aad hadhow ugu soo noqoto meeshii aad maraysay. qaybaha xigo imtixaanka iyadana waa loo gudbi karaa. imtixaankan 120 su'aalood buu ka koobnaa. ardayduna way practice garayn karaan marar kala duwan si intaynan gelin imtixaanka ka hor. marka hadday qaybta kala galayaan profile-ka inta ku dhuftaan setting ay tagaan, waxay xagga dambe inta koorse u diiwaan gashan ay u imanayaan. marka saas waxaan filayaa haddii ardaydeena ay waalidku garab istaagaan inay wax badan ay la garab istaagi karaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ka faa'iidayso wacan.